daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga Hilaac ee magaalada Muqdisho. Qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu hortagay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa shir xasaasi ah waxay ka yeesheen kulankii ku soo fashilmay magaalada Dhuusamareeb. Qaar kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen khudbadii maanta oo madaxweynaha Soomaaliya ka horjeediyay baarlamaanka. Faahfaahin dheeri ah ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay gobolka Gado. Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay ka digeen in dowladda Soomaaliya ay sameysato muddo kororsi. Guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga intaa.